taliyaha ciidanka booliska gaarka ah Haramcad Kabtan Cabdixakiin Celeere ayaa gaaray magaalada Baraabe ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas uu u tagay dardargelinta howlaha amni ay ciidanka Haramcad ay ka wadaan magaalada. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay iskaga baxeen magaalada Baraabe isla markaana doomaha dheereey ay ku tageen degmada Kismaayo ee maamulka Jubbaland taasoo abuurtay firaaq amni ay hadda buuxinayaan ciidanka federaalka gaar ahaan kuwa Haramcad. Sidoo kale xaaladan ayaa ku soo aadaysa xilli ay soo xumaanayso xaaladda siyaasadeed iyo tan amni ee u dhaxaysa maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Khilaafka u dhaxeeya labada dhinac ayaa sarka ku haya arrimo la xiriira maamulka deegaanada, awood qaybsiga iyo arrimaha doorashooyinka taasoo saameyn ku yeelatay wada shaqayntii hay'adaha amniga. Dadka deegaanka Baraabe ayaa la sheegay in ay ka muujinayaan walaac ku aadan isbedelada degdega ah ee dhinaca amniga, iyagoo qaarkood ka cabsi qaba in xaaladdu isu beddesho isku dhacyo hubeysan haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin xiisadda kacsan. Sidoo kale saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in qorshahan cusub uu yahay mid lagu doonayo in si buuxda gacanta loogu dhigo amniga Baraabe isla markaana looga hortago wax kasta oo carqaladeyn kara xasiloonida magaalada oo ah deegaan istiraatiiji ah oo ganacsiga ku wanaagsan. Wararka laga helayo ila amni ayaa tilmaamaya in ciidanka Haramcad ay bilaabeen howlgallo lagu xaqiijinayo nabadgelyada isla markaana lagu adkeynayo koontaroolada guud ee magaalada iyo nawaaxigeeda.